أبو فلح oo shuruud ku xiran inuu sheegi doono wadanka uu ka dhashay oo uu ka soo jeedo. wuxuu ku sigtay inuu mar iska joojiyo YouTube channelkiisa oo ku dhow 1 milyan oo subscribe. waa maxay sababta? waa tookadii labaad oo wiilkan da'da yar ee milyaneerka ah aadka loo hadalhay shaashadaha caalamkana qabsaday. maxaa ka soo cusboonaaday Abu Falax? maxayse dadka aad ugu hadalhayaan maalmahan؟ مبلغ المطلوب ولم يستغرق ذلك سوى 28 ساعة فقط، وهدفه تأمين مليون دولار. أبو فلا يوتيوبر يملك قاعدة متابعين كبيرة على حسابه الاجتماعي وبسبب الشهرة تدعم المشاريع الخيرية muuqaalkeena ayaan kaga hadlaynaa laakiin ka hor inta aanan muuqaalka u gelin waxaan aad ugu mahadcelinayaa asxaabtayda. channelkeena YouTube waxa uu gaaray 10,000 oo subscribe. dhammaan asxaabta ku xiran channelkan Cabdiqafaar Gamaadid waxaan leeyahay hambalyo meel walba oo joogtaan. aad ayaanan idinkugu mahadcelinayaa sida dhow aad ila socotaan, mar walbana garabkayga aad tihiin iguna dhiirigelinaysaan inaan hore u soconno. insha Allah sanadkan hadda bilowdana waxaan rajeynaynaa in channelka aan hore u socodsiino, boorka aan ka jafno, ugu yaraan haddii aan awoodana asbuuci aan soo geliyo 3 ilaa 2 muuqaal. haddana waxaan toos u galaynaa muuqaalka aan kaga hadlaynaa Abu Falax. bil ka hor YouTube-ka waxaan soo dhigay video aan ku sharxayo nolosha Abu Falax iyo sidoo ku soo bilaabay YouTube-ka. waagaasna waxaa aad loo hadalhayay wiilkan kadib markuu lacag u aruuriyay dad masaakiin ah. muuqaalkaasna waxaan ku sharxay noloshiisa iyo qaabka uu ku soo bilaabay YouTube-ka. laakiin hadda maxaa ka soo cusboonaaday Abu Falax? wiilkan da'da yar ee YouTuberka ah waxa uu u safray wadanka Imaaraadka, waana markii abid ugu horeysay noloshiisa uu safar galayo. safarkaasna wuxuu ugu talagalay inuu ku raaxaysto kuna dabaaldego sanad guurada dhalashadiisa. kadib waqtigu Dubai tagay waxa uu wareysi siiyay channelka caanka ah ee lagu magacaabay AB Talks. channelkaas oo wareysiyo ka qaada dadka saameynta leh. wareysigaana waxa uu ku sharxayaa kuna faahfaahinayaa dhibaatooyinkii ka soo qabsaday maanta guusha uu taagan yahay inuu gaaro. sida muuqaalkii hore ee YouTube-ka aan soo geliyo aan ku sheegayba Abu Falax waqtiga iskuulka dhameeyay waalidiintiisa way awoodi waayeen inay ka bixiyaan jaamacadda. waqtigaasna waalidiinta waxay ka bixinayaan jaamacadda walaalkiis ka weyn oo qoyska Abu Falax uu ka dhashay waxay iska ahaayeen qoys danyar ah. Abu Falax waqtigaasna wuxuu go'aansaday inuu sameeyo waxyaabihii uu jeclaa sida inuu dheelo game, muuqaalo gamina asagoo sameynaya in uu YouTube-ka soo geliyo. YouTube ayuu furtay, YouTube-kiisa ayuuna xooga saaray. waqti kadib YouTube-kiisa ayaa u kala kacay, waxa uu gaaray 500,000 subscribers. wuxuuna go'aansaday inuu la wadaago waalidiintiisa. hooyadii iyo aabihii ayuuna u sheegay in YouTube-ka uu lacag ka sameeyo. laakiin midda caqabada ku noqotay Abu Falax ayaa ahayd in aabihii uusan ku qancin waxyaabaha wiilkiisa sameynayo. ابوي لانه كبير بالعمر زين، فمعاملتي يعني معامله انا الاب، اسمع كلامي. duqana wiilkiisa uu ku qeyliyay wuxuuna u sheegay waxyaabaha uu wiilka sameynaya inaysan diinta waafaqsaneen oo ay tahay xoolo shaydaan oo lacagtaas internetka laga helay ay tahay xaaraan. wuxuuna ku qasbay inuu iska joojiyo YouTube-ka. حتى كان ضدي ترى في اليوتيوب، ابوي ما يعرف شيء اسمه يوتيوب، ابوي تلفونه نوكيا الله يحفظه. فيوم قلت له اني انا قاعد اشتغل شغل كمبيوتر كذا، قعدت نص ساعتين ونص، والله ساعتين ونص وانا قاعد احاول افهمه شنو. قال لي لا انسى تكمل. قلت له ليه؟ هذا مكان شياطين، كفر والعياذ بالله. توبه طولي بالك، ما له دخل والله ما له دخل، هي على حسب المحتوى الواحد ما له دخل. بالعافيه اقنعته كفر. Abu Falax waqtigaasna wuxuu ku sigtay in YouTube-kiisa uu iska joojiyo, laakiin ugu dambeyn waa laga dhaadhacsiiyay aabihii in waxyaabahan aysan ahayn xaaraan oo ay ku xiran tahay hadba qofka soo internetka u isticmaalo wanaag iyo xumaan. Abu Falaxna waxaa garabkiisa noqotay oo ku taageertay waxyaabahaas hooyadii. waqtigaasna wuxuu bilaabay Abu Falax inuu isa saaro mas'uuliyadda guriga iyo qoyska masruufkooda, uu bixiyo ijaarka guriga, waxyaabihii guriga u baahnaan oo u soo gado si waalidiintiisa ugu qanciyay in internetka uu lacag ka sameeyo. su'aasha kale Abu Falax la weydiiyay waxay ahayd su'aal xasaasi ah, su'aasha ee mar walba dadka in si babliga uu sheego wadanka uu ka dhashay oo uu ka soo jeedo. عشان شي سألتك السؤال، أنا عرفت جنسيتك بس مستحيل بقولها إلا لو أنت تقولها. لكن أبو فلح أصلا سؤاشان كلا حليحانيا wuxuu sheegay hadduu qof wadada iga soo horbaxo shakhsi ah waan u sheegayaa wadanka aan ka soo jeedo hadduu i weydiiyo, laakiin ma ogolin in inta kaamirada aan soo hor fadhiisto si babliga aan u sheego. بس حاكرها على السوشيال ميديا فقط، يعني ما ابي اقول في السوشيال ميديا عشان تفكير خاص لي، يعني مثلا فضول ما فضول، اما بالعلن كل الناس يعرفون ترى.
كل قصدي بالعلن بل قدام الناس اللي حولي ترى كلهم يعرفون. ومثل ما قلت يا رجل بالشكل يبين يا الهي، لو يجي الواحد بالشكل يبين ولما يسولف معي يسالني اجاوب وسيده، بس قدام الكاميرا لا. Abu Falax wuxuu sheegay maxay su'aashan dadka wax weyn ugu tahay. aniga waxaan soo gudbiyaa waxyaabo wanaag ah, waxyaabo aan jeclahay, waxyaabo dadka faa'iido u ah. maxay u soo kordhinaysaa haddaan dadka u sheego wadanka aan ka soo jeedo, maxaana aniga ka faa'iidayaa. muhiimaddu waa waxa aan soo gudbinay iyo say dadka ugu qanacsan yihiin. muhiimaddu ma ahan inay dadka ogaadaan ama wax weyn ay ka dhigaan wadanka aan ka soo jeedo. sidaas ayuu ku jawaabay, laakiin hal shardi ayuu ku xiray inuu sheegi doono wadanka uu ka soo jeedo. وهذه channelkiisa uu gaaro 50 milyan oo subscribe. su'aalaha Abu Falax la weydiiyay waxa kamid ahaa waqtiga uu masaakiinta ugu aruurinaya lacagta 1 milyan oo dollar in waxyaabahaas uu sameeyo caanimo darteed in meelaha laga sheego. laakiin jawaabtiisa sidaan ayay ahayd: aniga caan waan ahay oo maanta caanimo uma baahani, laakiin caanimadeedu waxaan uga faa'iideystay wanaaga in Ilaahay ajir uu ugu siiyo. Abu Falax asagoo jawaabtiisa sii wata ayaa wuxuu dib ugu laabtay noloshiisa hore, wuxuuna dhahay waxaan soo maray waqti aan asxaabteeda banaanka oo la baxo مقايد ولا فديسانو عند البنواي هل كوبشين أما هل شح العقل الآن أوجد. رجل كنت أروح القهوة مع الشباب، زين أروح أي قهوة لما كنت بداية لما كنت 12 قبل لا أتخرج. أقسم بالله صاحبي اللي معاي برا حاليا وهو كان يدفع لي شنو فلوس قهوة ربع دينار. إني أوصل لمرحلة الحمد لله موصل اللي أنا واصل لها الآن، يا إلهي هذه نعمة عظيمة. waxaan soo maray waqti aan bixin weynay ijaarka guriga aan ku nooleen. waxaan soo maray waqti aan indhahayga ku arkay aabahay oo la walwalsan masruufka qoyskeena. laakiin maanta alxamdulillah Ilaahay wuxuu i siiyay hanti. waxaan haystaa dhaqaale aad iga badan, guryo ayaan leeyahay, lacag aad iga badan ayaan haystaa. maalinta qiyaamo markaan Ilaahay hor istaago uu Ilaahay i weydiiyo maxaad ku qabatay hantidii aan ku siiyay, maxaad ku qabatay nimcadii iyo lacagihii aan ku siiyay, Ilaahayna waxaan ugu jawaabi doonaa Ilaahay ceelal ayaan qoday, masaakiinta ayaan guryo u dhisay, masaajid ayaan dhisay, masaakiinta ayaan quudiyay, lacagihii iyo hantidii aan isiisan waxaan uga farxiyay ilmo agoon ah. sidaas ayuu ku jawaabay Abu Falax. لما أكون أمام ربي زين بصراحة أكون أمام ربي يقول لي أنت شو سويت بالنعمة اللي أعطيتك إياها؟ راح أقول جوابي يا ربي بإذن الله بعد ما يتقبلها بإذن الله يتقبلها إني سويت مسجد مع الناس متابعيني، ساعدنا كذا وكذا وكذا وآخذ مشروع اللي هو مليون. run ahaantii waxyaabahan uu Abu Falax soo sheegana waa waxyaabo dhab ah. waqtigu channelkiisa 5 milyan oo subscribe uu marayay Afrika waxa uu ka dhisay ilaa dhowr masaajid. ciyaal badan oo agoon ah masaakiin ahna waa uu quudiyay oo guryo ayuu u dhisay. حتى بدت بال5 مليون، بدت بمسجد. زين كنت قاعد انا وصاحبي وفتح لي الموضوع وانا حبيته توكلنا على الله. بساعتين قفلنا مع انه والله waqtiga hadda ugu dambeysana waad wada aragteen meel walba laga hadalhayo oo masaakiinta ayuu u aruuriyay lacag 1 milyan oo dollar ah. sidoo kale su'aalaha Abu Falax la weydiiyay waxa kamid ahayd midabka uu jecel yahay inuu sheego. waxa uu yiri waxaan jeclahay midabka madowga ah iyo midabka cadaanka ah. taas Abu Falax isku mid ayaan ka nahay oo aniga Cabdiqafaar midabyada aan jeclahay waa madowga iyo cadaanka. labadaas midab ayaan aad ugu badanahay. muhiimadda muuqaalkeena aan u soo laabano maxaa keenay in dib Abu Falax baraha bulshada looga hadalhayo. shalay oo ay ku beegneed 8 bisha January Abu Falax wuxuu iclaamiyay inuu aruurinayo lacag 10 milyan oo dollar. lacagtaasna ugu talagalay masaakiinta inuu ugu deeqo. centerka magaalada Dubai ayuu ka sameystay meel meeshas ayuuna degay, meeshas ayuuna live ka soo galaya. haddadaan aan kula hadlayo haddii aad YouTube-kiisa booqato live-ka waa uu socdaa. lacagtana hadda kor ayuu sii kacaysaa waxayna ku dhadhowda 1 milyan oo dollar. taageedka lacagtaasna waa 10 milyan oo dollar. arrintaas ayaa dib u soo cusboonaysiisay in Abu Falax meel walba looga hadalhayo. dad badan ayaana lacaga ku deeqayay si lacagtaas ay u dhameystiranto una gaarto 10 milyan oo dollar. Abu Falax Dubai wuxuu u tagay dalxiis inuu sanad guurada dhalashadiisa kusoo dabaaldego kuna soo raaxaysto. haddana Dubai wuxuu ka bilaabay aruurinta lacagtaas 10 milyan oo dollar ah si uu masaakiinta ugu saacideeyo. maantana muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay. haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like dheh si dad badan u sii gaaro. waqtigaagana aad ku mahadsan tahay.